Yal soo dhawaada fiidiyowgan soo socda waxaan isla eegi doonaa OpenClaw iyo halisaha uu leeyahay maadaama dadku inta ugu badan hadda ay ka hadlayaan waxaan isla eegi doonaa OpenClaw iyo halista security-ga ee ku saabsan iyo waxyaabaha halista badan leh ee uu ku geysan karo fadlan fiidiyowga daawo inta aanad ku install garayn computerkaaga ama meel kamida meelaha xogtaada lagu kaydiyo isku soo noqod waxaan saaxiibayaal markii afurkii ayuu iga dhinaa wax yar saadarteed ayaynu fiidiyowga u joojinay OpenClaw ee maalmahan aad iyo aad looga hadlayo ayaynu ka hadli doonaa kuwa waxaan isla eegi doonaa waxyaabuhu ku wanaagsanayay kadib haddana waxaynu isdul taagi doonaa 3 shay oo aad iyo aad halis u ah oo uu ku geysan karayo waxa ugu sii daranka saddexaad ee ila joog muddo 5 daqiiqo si aynu ugu soo koobno markaa OpenClaw waa AI assistant waxayna marka history-ga la eego AI-gana waa kii ugu badnaa project AI ugu badnaa ee si degdeg ah u kara ugu yaraan 180,000 ayuu ka haystaa GitHub wuxuu kuu samaynayaa ticketska flightska kuu goynayaa emailskaaga ayuu kuu manage garaynayaa uu kaaga jawaabayaa uu akhrinayaa sidoo kale adigoo xataa iska hurdaa ayuu coding kuu samaynayaa oo wax aad iyo aad u wanaagsan markay noqoto assistant dhan oo saas kuu caawinaya laakiin inta aanad computerkaaga ku install garayn waxaan kuu sheegi doonaa 3 shay oo aad iyo aad u daran kadibna adigu go'aan ka gaar meeshii aad kusoo dejisan lahayd iyo qaabkaad ugu install garayn lahayd OpenClaw koowaad waxa weeye access to private data datadaada shakhsiyan ee kuu gooniga ah horta uu helayaa oo access ayuu u helayaa sababtoo ah emailskaaga ayuu akhrinayaa wuxuu iskaan garaynayaa CRM-kaaga hadday Slack CRM isticmaasho aduu CRM-kaaga companygaagu uu yahay xogta companygaaga oo dhan uu iskaan garaynayaa oo uu haystaa taasna waa your private data oo si gooniya looga faa'iideysan doono qayb saddexaad ayaan ku sheegi doonaa qaybka ay sidaas oo kale halis kugu tahay it connects to one password wuxuu isku xiriirinayaa oo uu ku wada waxayna waxaas oo dhan hal password taasoo iyadna risk aad iyo aad u weyn ah talabaad marka daran waxa weeye lagu arkay waxa weeye untrusted content marka OpenClaw maadaama uu fuli yahay AI assistant ku caawinaya wuxuu booqanayaa browserska webku booqanayaa websites ku rabu galaya meeluhu doono xog ka raadinaya uu galaya haddaad u dirsato meelahaas websiteskaas uu galayo waxa dhici karta in marka ay jiraan websites oo hackers ay leeyihiin isagu ma kala yaqaano oo ma kala saari karo waxan waa wax hacking ah ee jooji uu galaya uu sameynaya sidoo kale maadaama uu emailskaaga uu akhrinayo haddii dad hackers ay u soo diraan macluumaad iyo linki virus la ay ku soo diraan linkiga uu ku jiidaya straight away oo ma kala saarayo waxani waa virus iyo wax kale marka untrusted contactiyo aanan lagu kalsoonaan karin ayuu galaya hadday noqoto websites hadday noqoto email lagu soo diro oo linkiyo virus la ay ku jiraan isagu markaa contacti walba lagu kalsoonaan karayn sidaad adigu uga joogsanayso isagu uu galaya marka waxaa dhici karta in websites qaar ay dadka hackersku ay instructions ay ku sheegayaan ay leeyihiin rulkan raac adiga shakhsi ahaan aad isdhigi karto waxaan waa hacking ood ka joojin karto isagu markaa ma joojinayo oo ruleski loo tilmaamo dhan uu galaya ilaa ugu dambeyntii shabaqa uu ku galo oo xogtaadii oo dhanna lala wareego taasina waa talabaad markaa untrusted content saddexaad ugu daran ee idin sheegi waxa weeye OpenClaw wuxuu haystaa wax loo yaqaan authority to act waxa weeye wuxuu amar buuxa u haystaa in uu ficil sameeyo uu dhaqaaq sameeyo uu amar bixiyo tusaale ahaan wuxuu websiteska ka soo dejin karaa application uu computerkaaga kugu soo dejin karaa ama meesha uu kugu jiro sidoo kale it can transfer money lacag ayuu diri karaa oo lacagaha ku jira meesheed u dirtooda u amarto uu diraya back and forth sidoo kale wuxuu modify garayn karaa uu wax ka bedeli karaa fileska computerka kugu jira tusaale ahaan folders fara badan oo computerka ku jira magacuu ka bedeli karaa xogta ku jirtu ka delete garayn karaa xoguhu kala warwareejin karaa xogihii oo dhan buu delete garayn karaa so amar buuxda oo active ah ayuu leeyahay AI assistant-kani adoo hurda ayaa waxaad u sheegi kartaa oran kartaa fileskayga computerka ku jira 15 kamid delete garay adoo iska hurda u delete garaynaya so taas maxay markaa halis ku tahay maadaama uu authority to act haysto uu lacag diri karo uu transfer samayn karo dad hackers ay email u soo diraan ay leeyihiin OpenClaw waxa delete garaysaa 42 file oo computerka ku jira straight away u delete garaynaya haddii lagu iraado lacagaha meeshaas u kala dirdir straight away lacagta bangiga kugu jirto u dirdiraya haddii oo linki loo soo qaado si xogtaada loo dhaco oo email inta loo soo diro la yiraahdo linkigan hoose ku jiisa instruction-ka u raacdo uu ku jiidaya so anigoo kale waxa sameynaya email baan u diraya adiga ku soo diraya anoo og inaad OpenClaw isticmaasho linkigaas virus baa ku jira linki virus ku jira instructions baa ku jira si aan xogtaada u dhaco OpenClaw wii fududeynaya already xogtaada dhan u dhacaya marka maadaama halisahaas oo dhan uu leeyahay oo uu sameynayo in uu sameeyo access to private data datadaada qofkii u baahan uu gudbin karaa si xogtaada oo dhan loo helo laba wuxuu leeyahay untrusted content
meelaha aan lagu kalsoonaan karin iyo webka iyo linkiyada ayuu furayaa. ta saddexaad oo ugu daran oo authority to act wuxuu u haystaa amar buuxa in uu dhaqaaq sameeyo, uu ficil sameeyo, uu lacag diro, uu application kuu soo dejiyo, uu video kuu soo dejiyo. oo waxa weeye haddii aan laga fiirsan wax walba uu sameeyo. marka adiga markaad isticmaalayso OpenClaw uu computerkaaga kuugu jiro maxaad u jilicsan tahay? waxaad u jilicsan tahay hacking oo dhan. qof kasta oo adduunka joogo dhatadaadana uu heli karaa, virusna uu kugu soo sideyn karaa, waxaas oo dhan uu sameyn karaa. maadaama ilaa hadda uu OpenClaw uusan awood u lahayn in uu kala saaro wixii hackingka iyo waxyaabahaas oo dhan, waxaan idinku dhiirigelinaa markaa inaad computer kale oo aanad waxba ku filan inaad iskaga shubtaan haddii tijaaboon idinka tahay. haddii kalena intii uu waxani uu kala saarayo 100% in oo hacking iyo waxyaabahaas uu kala saaraya aad computerkaaga ku shubin. haddii aad AI agency saas oo kale assistant kuu sameynaya aad xiiseynayso, fadlan ila soo xiriir. waa kuu sameynayna AI assistant oo isagu xadidan oo acti sameynayn, oo lacag dirayn, oo linkiyo ku dhufanayn, laakiin kuu akhrinayo kuuna soo gudbinayo. Fiidiyowgan waxaa sponsor gareeyay saaxiibayaal All-in-One Safari app oo application coming soon ah oo dhawaan laga furi doono East Africa, Soomaaliya, Somaliland iyo UK intaba. marka applicationkan restaurant waad ka dalban kartaa cunto, taxi waad dalban kartaa, bajaaj waad dalban kartaa, bakhaar waad ka soo adeegi kartaa, raashinka intaba. marka hadda waqti xaadirkan waxaa laga furi doonaa Muqdisho dhawaan. reer Muqdisho applicationkan All-in-One Safari app soo dejista. fadlan cunto waad ka dalban kartaa, bakhaar waad ka soo adeegan kartaa, bajaaj waad ka dalban kartaa, motorfy waad ka dalban kartaa, wax walba oo aad rabto waad ka samayn kartaa. applicationka linkigiisa hoostaan dhigay, fadlan Play Store-ka iyo App Store-ka inta uu ku jiro. haddii aad jeclaan lahaydeen sidoo kale in OpenClaw hore waa usoo tijaabiyay, haddaad rabtaan in qaabka loo install garanayo waxyaabahaas aan idiin sheegana, fadlan commentiga igu soo qora. Ramadaan mubaarak.